موضوعنا ما تحوق سيا قدنين كنتم مركو أدين سلام ولا لدي عفمات ما يدرجنا هذا ويلت هاي وأسكال قد بكرتها دارت نودي جيس كرتها أقون كل سؤال حن كما هلا إن شاء الله أدقون يسوري بيني كومنت حن إن شاء الله مركا موضوعنا هذا قد قلنا سوى أكتين قدنين كرجع وكلتهم كلا هلا وكلته وواجب دمر وكلتني ومثال لا إسكوهست أوكي marka misalada isku haysto waxa ka badaa qaar sunno way dhahan qaarna waajib way dhahayaan qaar waxay dhahayaan shuyuuqda qaar xadiis oo saxiix oo toosay ku soo aroorin oo dhahayo gudniinka dumarka ka hadlayo waajib way dhahayo xadiisada ku soo aroorina waa daciif ay dhahayaan waxa la shuyuuqda qaarna xadiis waxa jira saxiix oo kale oo baabu tahaara ku jiro oo waxay dhahayaan kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay labada gudniin haday istaabato ayagoona shahwa ka imaanin waa in la isdaahiriyo min istaabashada labada xubin ay istaabatay darteed waa in la isku daahiriyo marka xadiiskaas oo kale maadaama laba gudniin lagu sheegay in ragana inuu gudan yahay naagtana ay gudanto kale ka dhigan tahay marka saas darteed manaa gabadha in la gudo way amal marka shuyuuqda qaar waxay dhahaan inaa dahaaro ka hadlaayo gabadha hal gudo ma dhahooyo amal وهذا يفهموس إن شاء الله موضوع مش سو مرة دين الإسلام كقولته ومثلا الأسكوه هستو بدن كودن بدين سنة واي مش سأقول بحا مدي حكتا وحتى هاي شيوخ ذكر وحي قبعنا وقالته هدي بل أجوكت ودمضة قاعدة وقالته وبرنامج كإف جي إم كوجودين كقبلها لو واحد لا وقتين العقد بدنا لوعنا وميلها دنا لو شقستا وضد بدنا كجران سو قاعدة أكتر وقالتنا وحكتا هاي دنبي كتا هاي وهدول اللي اسكو حرايم فهمتي مركا إن أعظم سمين دين الإسلام كأي خبطة أصلاً ماشي هذه المهلة قاعدة لنا هاي وكلته أوكي مدي حكتة وحتى هاي عربي دين الإسلام كأي شيوخ ضمن كان سنة ولا هاي كان أو هاي معركتين واجب واحد هاي وحال سكراعي جنين كلا أقولي هاي جنين كلا أقولي أنا بحاول شيوخ قارئ كوفسرة like إن لو دوي ومفهمتي من سليجر لا كانوا قلته أما وحير مثل جكير راسيو من أنا wax bariil la jijiifaysa gabadh oo kale aan ahayn qodba lagu dhijinaayo ma ahan shuyuuqda qaarna waxay ku fasireen oo kale ay dhahayaan gabal yar in laga gooyo kintirka oo kale ay dhahayaan marka taas waa gudniinka la ogol yahay oo sunnada la dhahay marka sheekadan oo sunna kabiir waa la dhahay oo qodbada qodob lagu dhijinayo gabadh oo kale kintirka laga jaranayo sheekadaas sheeko oo diinta ay ogashahay ma ahan fahamtay mid xigta arabi ina dhahaa waxay tahay gudniinka fircooniga oo kale markii gabadha la gudaayo kale oo kintirka dhan laga jaro oo meesha la soo tolaa iyada gudniinka fircooniga asaga kala badbadan fahamtay uu kala dardaran yahay marka gabadha oo kale qaar waxa jiro oo kintirka kala laga jirto qaar oo macala camanka laga jiro oo meesha sagxad laga dhigo kala diinta islaamka ma ogolo hadii bal shuyuuqda qaar waxay dhahayaan hadii qofka uu nin raga ku sameeyo kala kontanka halaad oo gabadha diyadeeda waa in laga qaadaa hadii naagta hay oo kale tan in looga aargudo waxay gabadha ku sameeyso kale in lagu sameeyo iyadana sagxad laga dhigo oo looga aargudo insha Allah caafimaadkana waa ka soo hadlay وبارتيجي لبعض وحده بص على جودنين كدومر كمان تحكى لنا قيبتنا وحتى هاي جودنين كعن دينتنا إسلام كإيرالي كهين كاس أو جبد إن أو كنتير كلا أنت لجبد الجراء كبعدنا ماشي لقى طلع فهمتي دينتنا إسلام كإيرالي كمان قاركودت كقارب حكم عبايان سن كبير إيه يعني فهمتي ما دام السنة دي رسول صلى الله عليه وسلم أو جبد جر كلي إن لسي أتها عم وحير لقى جراء كنتير ك tahay tan loo gol yahay marka dadkan qaar waxay sameynayaan si jaahilnimo ah bacdina sunno kabiir ee dhaan sunnada ku sii magacaabayaan fahamtay inay gabadha kintirka ka jaraan ka bacdina oo lagu dhiji laba qodob iyo saddex qodob oo kale fahamtay waa mid kale oo ka daran waxa jira oo la dhaho fircooni oo kaas oo gabadha macala kintirki iyo camanki laga jaro oo ka bacdina meesha dhan laga dhigo sagxad fahamtay oo ibr fahamtay taasna iyadana ma ogola diinta islaamka qof walbana waa la meedina fahamtay kullukum mas'uulun an ra'aytihi fahamtay xadiis rasuulka dhahay qof walba waalideena waa la meedina taasna insha Allah qiyaamaha idin kula xisaabtami doon qofkii sameynayana waa inuu joojiyaa fahamtay ilaahiis inuu u noqdo fahamtay dhibaatooyin fara badan aan dumar kaga imaado insha Allah waa ka hadli doonaa laakiin hadda waxa rabaa inaan idin sheego waxay tahay aslan ahaan dadka maxay dhahaan intuu ka imaado horta aslan intuu Soomaalida ugu imaaday gudniinkan marka gudniinkan waxa la dhahay xirigii waxa meelka akhriyay inkastoo Allahu a'lam nin Greek oo kun lix maxalaay 163 sano ka hor waa nabigiisa xilligii ka hor ahay aanin Greek wuxuu soo helay meed oo gabar oo fircooniyad ahayd oo mamiska waa taqaantiin marka meedkaas wuxuu u gudnaayay dhahan sidii oo
like had sida aan sheegay fircooniga oo meeshan gabadh inta laga hoolo oo wix dhan laga soo tolay marka saas u gudnaay marka saas darteed waxay u dhahaan marka diinta islaamka iyo diinta kirishtaanka wuu ku horeeyeen gudniinkan sidaan oo meesha soo kiimaada faraacinta xiligooda kiimaadeen ay dhahaan marka waxaan loo gudi jiray gabdhaha la adoonsanayo kaleeto si markinooneel gabdhaha la adoonsanayo la soo qabsado waa ilaa waa la sigadaa inay wax dhasho lama rabo marka saas darteed xubinta taranka dhanaanta laga jarjaro laga tuli jiray marka waxa kale oo blog yar ku akhriya waxa tahay qof qoray wuxuu dhahay كل 609 كيلو كلته Soomaali Muqdisho agteeda meel u dhow waxa dadkii Soomaalida markaas meesha isku noolaa waxay ku dhaqmi jireen gudniimada noocaas oo kale gabadh in isaga dhan laga jaro sababta xiligaasna waxa jiri jiray adoonsi oo European iyo Afrikada ay ku haysteen oo gabdhahana la adoonsi jiray saas darteed gabdhahana qaabkaas loo gudi jiray iyadana sidoo kale waxay u sameyn jireen sababay u sameyn jireen inay wax dhasho u diidi jireen sababtoo gabadha xubinta taranka dhan laga jaro nin bas u damciinsas waxay dhan la tolo kale si waa gabar la adoonsan rabo oo la si iibinayay marka mid xigta waxay tahay dadka qaarna waxay u sameyn jireen la Soomaalida xiligaas jireen ee dhahan like in gabadha laga ilaaliyo kufsiga iyo wixii la mid ah meena sumcad ahaan lagu ilaaliyo baartigiisa saddexaad waxa uga hadlaynaa waxa taa dhibaatooyinka kaga imaada gudniinka oo gabadha markii laga goonayo xubinta taranka kintirka dhan laga wada jaraayo kaleeto kabacdi meesha laga tol qaarna camanka laga jaro marka dhibaatooyinka guud ahaan insha Allah uga hadli doonaa wixii markaas gabadhaha dumarka ugu imaan marka dhibaatooyinka laba nooc u qaadayna mid waxa taa dhibaatada koowaad oo maxaa dhahay isla markii la gudayo kabacdi ku dhacdo fahamti dhibaatooyin waxa u qaadayna oo gadaal dambe cimrigeeda inta kadib كديمان إلى كل ما يسمى فهمتي لكن دبعتين كواد إلى كل ما يسعى وحكم ده بدي كواد أو حتى هاي جبدي حبينت الترن كمر كلا جرجر وكلته حنون حداف وكلته مركز لسه درسة يسبته حبينت هذا الترن كعلى جرجري بدي حكي أو حتى هاي وحالة درسة وكلته فهمتي infection ماشي إنه كخادم فهمتي يجبح فهمتي سبته ماشي لا جري يجبح وكلته إنه كوي معضو إن أو حبينت الترن كلا جرجر وكلته إنه برشته تيشوغا أو كهريرسن ماركتي إن حبينت الترن كهريره هذا وكلته منها ما دام مش من الله ولا حبينت الترن كلمة حتى وحكوا هريرسن حتى إنه وحكا جاران وكلته ضد كقارع كود عضو فهمتي يو دقسي إني وريسة ويسو وكلته فهمتي ضد كقار infection كاس كود عدرت ضد كقار وحكوا معنا وكلته شوك فهمتي وكبعدين قاركون ودينتان وكلته مركا حليس يرماهن دين الإسلام كان أصلاً qofka bini aadanka xataa haduu dukanayo loo baniyay hadii uu jirin yahay inuu fadhi ku dukado in laakiin gabar heerkaas la jarjaro diinta islaamka ma qabto oo waxay xubinteeda taran dhan la hoolo ma qabto maanti dhibaatada kale aan ka tagay waxay tahay la kulmaan dumarka qaar waxay tahay kaadi heesto kale tabaartay dhibka gaara horta dumarka qaar hadda oo gudan xataa ma ugu maantay oo in ay kala duwan tahay gabdhaha meel ay ka kaadiyaan iyo xubinta taranka meesha caadada ka soo baxayso oo laga dhalay inay kala duwan tahay dumarka qaar ma ogo sababtoo ay waalidkoodii aslan ayagoo yar laga soo shiray like waxa u maleeyaan in kaadi heestii la kaadada iyo meesha caadada hal meel looga dhigay sababtoo ay meesha dhan laga soo wada tolay marka imagine garay gabartaas ilaa heerkii wixii lagu sameeyay iyo xanuunka ula ekaay ina imagine garay siinaa rabaa